daawada kusoo dhawow barnaamijka haweenka iyo nolosha waxaa barnaamijkan noogu marti ah mas-uuliyiin ka tirsan gobolka Banaadir gaar ahaan ururka haweenka gobolka Banaadir iyo haween kale iyagu ka shaqeeya soo saarista face mask ama waxyaabaha waji xirka loo yaqaano aad la isaga difaaco ka hortagida coronavirus oo dunida aadka u saameeyay marka hore soo dhawow ayaan leeyahay Sahro oo kamid ah haweenka iyagu hadda ku howlan soo saarista face maskan oo aad u jeedaan oo ay dadku ku xirtaan wajiga kani dalka ayaa lagu sameeyay ma ahan kuwii dibadda laga keenay oo aad arki jirteen haween Soomaaliyeed ayaa u dhalgashtay oo fikirkooda iyo aragtidooda isku aadiyay oo iyagu xoogooda iyo xoolahooda isugu geeyay inay bulshada u soo saaraan face maskaas bismillaahi raxmaani raxiim magacaygu waa Saare Cabdullaahi Calaso waxaan u mahadnaqaa barnaamijkan dadka daadihinayo special nasriin haddii waxaan u kala hortay inaan soo saarno cudurkan wadanka adduunka aafeeyay haddii loo baahdo wax looga hortago waa inaan isu diyaarinaa inaan sugin wax ka yimaado dibadda iyo adduunka intiisa kale waa inaan isku tashanaa in aan soo saaran karna wixii looga hortagi lahaa intaan sugi lahayn gacan shisheeye marka waxaan u kalifay awood waa leenahay maskax waa leenahay inaan gacan islaameed sugno ma aha haddaan haweenka Soomaaliyeed nahay inaan wadanka samata bixin karno wax soo saaran karno isku filannahay marka xaaladdan oo kale ayaa waxay ugu qasabtay in aan intaan meel fadhin lahayn inaan maskaxdeena shiilno waxaan ku fikiray marka intaan meel fadhin lahaa maskaxda inaan shiilo oo dhaho okay maxaa wadanka badbaadin karnaa sidee uga hortagi karnaa okay waxa loo baahan yahay waa waxyaalo looga hortagi lahaa sida nooc kasta ahaada hadduu ahaan lahaa plastic la xiran lahaa hadduu ahaan lahaa gloveski hadduu ahaan lahaa maskigi marka wax soo saarkeena hadda waxaa ugu horeeya maskigi iyo waxaan soo saarnay bacdaaniito oo ah protection markii loo baahdo la xiran karo sinyeer leh aan kusoo gudbinayn waxne maskan waxaa looga hortagaa in la xirto neefta si aad neefta qof kale u qaadan kaagana aysan u bixin oo cudurka aad u faafin adna aad wax u qaadanin marka maskan waxaan ka sameynay material dhar plastic inta wadanku yaala waxaan ku tababarnay haween badan oo hooyooyin ah waxaa lagu sameyn karaa gacanta ma loo baahno in harqaan iyo wax badan la galo plastic iyo waa maro iyo feero waxaan u baahanahay cirbad iyo dun marka waxaan ku sababtan u kaliftan waxay tahay haddii wax emergency loo baahdo qof kasta oo gurigiisa joogo inuu sameysan karo wax adag ma ah waa wax simple marka aqoontan inay fido qofka isku kalsoonaan la gaaro isku filnaan karno taas ayaan u kaliftay maasha Allah midda xigta qiyaastii imise intee leeg ayaad soo saartaan oo imise xabo ayaa soo saartaan oo idin suurta gashay inaad soo saartaan waxay ku xiran tahay hadba inta hadda 1000 haween badan ayaa ka shaqo galay 1000 boqolkii xabo waxaan ku soo bannay muddo one day laakiin haween badan iyo dad badan waxay ku xiran tahay inta wala soo saari karaa haween badan wadanka ku nool dadweyne badan aan leenahay haddii la soo tago inta arabno wadanka waa kaafin karnaa waan soo saari karnaa ilaa imise haween ayaa ka shaqeeya oo si maalinle u qabto shaqadan okay at the moment waxaa jooga ilaa 27 waxaana caawiyo oo kala la shaqeeyo 3 rag laakiin 27 dumar joogto ku shaqeyso halkee ayaad u suuq geysaan oo ma dadka ayaad ka gadaan mise waxaad keentaan gobolka sida aad hadalkaaga ku xustay weli ma suuq geynin maamo Jawaahir oo nala shaqeynayso ayaa waxay maxaa la maanta inta product inta u badan iyada iska leh caawinaadeeda wax qabadkeeda weli suuq geys ma bilaabin laakiin waa suuq geyn doonaa laakiin hadda waxaan rabnaa inaan buuxino baahida gobolka iyo dadka muhiimka ee u baahan marka qaybta aad soo saartaan oo kale oo aad ugu talagashaan in aad gobolka keentaan ma dadka si bilaash lagu siiyaa mise waxaa dhacdo in iyagu ku dhooda laga iibiyo lagu tijaabiyo bal inay gadan karaan weli lama iibin si sadaqa bilaash lagu bixinayo ilaa hadda inta aad bixiseen oo duqeyseen ilaa qiyaastii inta gaaraan ilaa iyo hadda waxaan bixinay 1500 oo aad dadka siiseen aan siinahay maxay dhahaan markay xigtaan oo kale way nooga mahad celiyaan geedkaanita ma aha wax one time oo la tuurayo maradan waa marada mar kasta la dhaqan karo la isticmaali karo dhaqaale ahaan waxay haddii la iibsanayo xataa dhaqaale ahaan waxay safe gareynayaan qarashka badnaa lagu iibin lahaa hal xabo inta la isticmaalo la tuuro waa wax ku oolaya years waa dhaqan karto oo markasta isticmaali karto ma qorsheynaysaan marka in kaamamka ama xirooyinka barakacayaasha aad geysaan ama meelaha dadka aanan lahayn awoodda inay iibsadaan ay ku nool yihiin
taas waa hadda waxaan ka shaqeynaa anaga imaamo Jawaahir oo tugada waxaan ku tali jirnaa inaan ka shaqeyno oo gaarsiino inta awoodeena ah qof kasta oo baahan oo Soomaali ah waan xaqabtiri karnaa inaan inta awoodeena dhanta aan ku dadaalno aan gaarsiino meel kasta joogaan waxayna noqon kartaa mid weyn sababtoo ah waa waxaan isku daynay awoodeeda aan leenahay aan samaysan karno qof kasta Soomaali wax isku dayi karo muhiimku waxa waa inaan isku dayi karno oo dibadda wax laga keenin dhiirgelin weyn waa in awoodeena isticmaalno maskaxdeena isticmaalno anagana wax soo saaran karno wax kasta oo ahaatee dhib intee la-eg ayaad ka marteen soo saaristiisa muddo intee la-eg ayay idinku qaadatay in aad soo saartaan oo aad ku guuleysataan in productigan aad samaysaan والله دب ما جرو waxay ku xiran tahay kasta aad u rabtid wax kasta aad rabtid waa la gaaraa wax dib la dhahay ma jiro waxay ku xiran tahay rabistaada iyo go'aankaaga iyo targetkaaga inaad rabtid inaad wax gaarto waa gaaree wix dib laga dhigtaa dib noqdo waxaan ogaanay kan in loo baahan yahay nasadeen badbaadinaay hadii wax yimaadeen aan caawinaad qolo kale aan uga baahnayn aan isbadbaadin karno ugu dambeyntii maxaa rajaynaysaan maadaama hadda aad isku hawshaan inaad soo saartaan waxaan rajaynaynaa inaan haweenka Soomaaliyeed not only haween Soomaali oo dhan ay ka baxdo baahi aqoon iyo madax shisheeye sugan tababar aan bixino TV-da ka soo saarno dadka tusan sida loo sameeyo iyagoo isticmaalaya cirbad iyo maro yar iyo lastiig iyo dun iyo feero aan u baahnayn xarqaan xataa qofkaan awoodin guriga uu samaysan karo haddii la gaar waayo asoo isbad bixin karo aad iyo aad u mahadsantahay oo ku mahad celinaynaa waxay ahayd Saare Culiso oo kamid ah haweenka iyagu soo saara face mask ama waji xirka dadku inta badan ay isaga difaacaan faafitaanka coronavirus oo halis baan ku haya dunida aad iyo aad u mahadsantiin anigoo Nasriin ay ii waramaysay daawade wali waxaad la socotaan barnaamijka haweenkii nolosha oo kaaga imaanaya Mustaqbal TV waxaana barnaamijka guud ahaan baan ku eegeynay wacyigelinta ku aadan COVID-19 doorka ay ka qaadan karaan dumarka waxaana marti noogu ahaa ururka haweenka gobolka Banaadir oo aad maqasheenba sidii xogta aan ku baahinay in ay qayb ka qaateen soo saarista face mask ama waji xirka looga hortago difaaca COVID-19 ama 19 mar haddii aan ka imaano dhanka Zahra iyo wareysigeeda haddana waxaan la fadhinaa oo aan xafiiskeeda kula jirnaa gudoomiyaha ururka haweenka gobolka Banaadir Jawaahir Maxamuud Jaamac Baarqab ugu horeyn oo kugu soo dhaweyneynaa Mustaqbal TV midda xigta waxaad sharaxaad naga siisaa dhibaatada laga maray sida dumarka loogu dhiirigeliyay in ay ku dhiirtaan soo saarista face mask ama waji xirkan iyo mushkiladihii laga maray waa mahadsantahay marka hore Nasriin adiga iyo bahda TV-ga Mustaqbal aad ugu faraxsanahay dabcan arintan waa arin COVID-19 ama coronavirus-ka waa xanuun adduunka oo dhan aad u halkeeyay dad badan oo qiimo badan oo Soomaaliyeedna waa inooga dhinteen inna lillahi wa inna ilayhi raaji'uun waxaan aaminsanahay marka doorka haweenka Soomaaliyeed ay ku leeyihiin waa mid muuqda dabcan waxa dhacay aafooyin adduunyada nooga horeysay caalamkii ayaa gacanta ka taagay marka anaga oo ah dad Soomaaliyeed markii la dareemay adduunka qatarta uu ku socdo madaxda qaranka waxay qaateen go'aan cudurkan dawo ma leh laakiin wuxuu leeyahay ka hortag iyo in la xadido taas anagoo ka duulayna ka maamulka gobolka Banaadir ahaan iyo ka haweenka gobolka Banaadir ahaan waxaan isku xilqaanay maxaan qaban karnaa maxaa laga bedeli karaa maxaa la sameyn karaa waxaan noo soo baxday in adduunyada waxa ay noo keenayaan oo mask iyo gloveska ay tahay wax adag dabcan inaanay dadka Soomaaliyeed aanay ku wada filnayn marka anaga door intee la eegay haweenka qaadan karaa marka haweenku hal abuur ay leeyihiin fikirkeen waxa noo soo baxay maskan in la sameeyo gabdhihi inaan howl gelino waxyaabaha ugu talagalnana waxay ahayd dadka yaryar iyo kuwa waaweyn inay isticmaali karaan waayo marka loo keeno mask inta ugu badan waxa moodaa dadka waaweyn kaliya in laga fikiraayo ilmaha yaryar xataa anaga inaan u soo saarnay oo caruurta ay qaadan karaan waayo ilmaha anaga dhalnay waxa ii muuqanaya marka haddana inaan ka fikirnay dadku way dhimanayaan meydadka in la dhaqaal rabaa sidee haddana qofkii ama qofka dhakhtarka oo shaqaynayo inaan bacahan aan soo saarno haddana aan ugu talagalnay in maaragtay aan ku badbaadino ku yarayna qatar imaan karta oo ah xanuunkan inuu yahay xanuun virus inaan dadka wacyigelino oo bulshadii miidiyaha aan kala hadalno
in dhaqaatiirta iyo go-aanada wasaaradda caafimaadka iyo madaxda qaranka oo madaxweynaha ugu horeeya prime ministerka iyo gobolka banaadir ee guddoomiyaha gobolka inuu guddi degdega guddoomiyuhu ku dhawaaqay. guddigaas oo aan xubin aan ka ahay, habeen iyo maalin waxaan u taagannahay xilli walba iyo saacad walbaba sidii dadkeenna aan u wacyigelin lahayn. waxaan rabaa gabdhaha soomaaliyeed meel walba ay joogaan, waxaan arkaya gabdho jooga adduunka oo laftirkooda samaynayo inay cuntadii dadkii inta la sameeyo loo sameeyo gargaar. waayo diinteennaaba waxay tahay inaan anagu samafalayaal inaan noqono, oo haddaan nahay haween ahaanna aan nahay kuwa birta ah oo mar walba khatarta u taagan, mar walbana ka shaqaynayo. waxay inoo muuqanaya marka mas-uuliyad weyn oo u baahan in la wada qaato. bahda miidiyaha oon kaga mahad celinayo wacyigelinta iyo doorka ay ka qaadanayaan isku xirka bulshada, waayo soomaalidu waxay mar walba inta badan yihiin kuwa wax daawada hadda hadday noqoto social media. marka si gaaraan uga mahad celinaynaa in tv-ga Nasriin oo runtii aan ogahay waqtiga adag ee aan soo wada shaqaynay, adigoo maaragtay aan ogahay inaad tahay gabdhaha birta aan ku xisaabtamayn aad ka mid tahay. mustaqbal tv-na aan hadda uga mahad celinayo inay noqoto markii ugu horeysay maaha, laakiin markii ugu horeysay oo sida covid-19 u dhacay barnaamijkan aan ka soo maaragtay halkan aad noogu timaadaan. waana midda hadda adiga hawsha adigaad u socoto inay tahay muuqaaladii aad aragtay inaad adiguna bulshada usoo bandhigto. haddana ahamiyadda uu leeyahay barnaamijkan uu ka duwan yahay barnaamijyada kale, waa barnaamijka qoyska iyo arrimaha haweenka looga hadlayo. waa barnaamij lagu soo bandhigayo gabdhaha soomaaliyeed aragtidooda fog, oo ay tahay in gabdhuhu ay yihiin kuwa fikri kara, waxna soo saari kara. waxaan rajaynayaa marka aniguna aan aaminsanahay in haddii dadka soomaaliyeed qof walba mas-uuliyad is saaro in cudurkan la xakameyn karo. cudurkan dad badana waxay aaminsan yihiin inuu yahay cuduraan jirin, inuu yahay dadka qaarkooda waxay ku leeyihiin dowladda lacag ku dalbanayso. laakiin markii gurigaaga uu yimaado xanuunka, ehelkaaga markaad weyso, saaxiibkaaga jeclaa iyo dariskaaga rumaad, ayaa waxaad dareemaysaa covid-19 ama coronavirus inuu yahay cudur jira. naqaskaa qofka ku dhagaaya, xanuuno badan oo noocyo badan uu leeyahay, qofac ahaanuu qofka u qabanayaa. xumadda qofka markuu arko inuu gurigiisa joogo, adduunka waad aragtay stay at home la yiri, qof walba joog guriga. dukaamadiyaa la xiray, meel walbaa la xiray, dadka naga hantida badnaa. haddana waxaa imaanaya si gaara haweenka inay arrinkaas ay noo saameyso, oo ah in gabdhihii shaqo la-aan ay dhacdo. saakay waxaan ka qayb galay video conference wasaaradda haweenka aan kaga mahad celinayo, iyo gabdhihii civil society-ga agaasimaha guud uu ku jiray. waxaana laga hadlayay waxay ahayd qaabkeen u caawin karna haweenka. gabdho badan oo jaadka iibinayay ayaa waxay ku dhacday dhaqaale la-aan, iskuulaad agooma haysta, gabdho badan oo garoobo ah, kuwo badan oo danyara, caruurahoodii kira degan, maantana aan haysanin wax ay ku shaqeeyaan. maxaa loogu bedeli karaa gabdhahaas? kuwa barakacayaal ah oo daleesha fadhiya, aan haysanin roobkan da-aya, teendooyin iyo baca ay ka galaan. waayo laga yaabee sanadka hore haddii la siiyey cadceedu inay dhammaysay, roobka xooggale markuu yimaadana daadkaba teendhada inuu qaado, hooyadii iyo ilmihiina meel cidlaa inay kusoo haraan. haweenka soomaaliyeed waxaa u yaalla shaqo adag ayaana horyaalla. wasaaradda haweenka iyadoo taa ka duuleyso, waxaan qorsheyna bal inaan wasaaraddu fundraising bilowdo 100 gabdhood oo kuwa ugu mudana inaan maaragta ku bilowno oo tijaabo ah. arrinkan marka covid-19 waa masiibo adduunka dhan gariirisay. waxaan leeyahay intii naga dhimatana inaa lilaahi wa inaa ilaahi raajicuun. dad aada u qiimo badan oo ra-iisul wasaarihii hore Soomaaliya Nuur Cadde uu ka mid yahay ku weynay. waxaa inooga dhintay halgamaageena qaaliga ahaa, ilaahay jannadii ha geeyo, cabdiqaadir cali boolaay, doctor cabdiqaadir aa inooga dhintay, oo runtii aan aaminsanahay wadamada ugu badan inay tahay wadanka Sweden iyo magaalada London ay dad in badan ku dhinteen oo Soomaali ah, sida Mareykanka meelo badan aa lagu dhintay. halkan magaalada Muqdisho ayaa dad badan inooga dhintay. waxaan rabaa marka inaan cudur kala yareysanin, oo aan ogaano cudurkan inuu yahay cudur jira. dhalinyarada Soomaaliyeed iyo haweenka Soomaaliyeedna aan ugu baaqo in laga qayb qaato ka hortagga iyo sidii loo xadidi lahaa,
in la yareeyo laamaha amniga habeenkii bandowga in maaragtay xalay ilaa iyo 50 qofood dad ka badan ama gaaraya ayaa loo xiray oo waqtigii ku dhacay hooyada Soomaaliyeed inay caruurteeda ugu baaqdo inta aan la gaarin 2 saac inay soo xaroodaan barnaamijkan marka haddaan u soo laabto COVID-19 aan ugu talagalnay in qofka muwaadinka Soomaaliyeed waxa la yiraahdaa biyo sacbadaada ayaa looga dhargaa ma noqonayso wax naloo keeno maalin walba inaan qaadano waa material waa dhaqanaysaa halkaana tiishka gelinaysaa haddii maaragtay aad istiraado oo aad u jeedaa ilmo yar xiranayo kan waa dadka waaweynaa waa midkan hadda aniga aan xiranahay dabcan waxaan ugu talagalnay inaan u diyaarino danyarta hadday noqoto ciidamadeena qof walba oo muwaadin Soomaaliyeed waxaan ku dadaalaynaa inaan tababar ku bixino oo haddaba aan diyaarinayno inaan isugu keenno meel walow dadkii la yiraahdo la yareeyo haddana in wax la qabto adduunka horumar kasta wadan kasta sameynay dad u soo dhintay adduunka dadka uu leeyahay dhaqaatiirta ugu badan waxay ahaayeen kuwa wax caawinay haddana ayaga yaa dhintay annaga laftirkeena kuwa nooga xanuunsado dhaqaatiir ayaa inooga xanuunsatay ilaahay ha noo caafiyo ha noo bogsiyo waxaan leeyahay marka maxaa Soomaaliya nala gudboon inaan ugu baaqo gabdhaha Soomaaliyeed gobolada jooga inay isku tashi wax la dhaho barnaamijkan waa isku tashi inaan anagu samaysan karno inaan anagu keensan karno inaan anagu wax qaban karno oo in marada ay noo taalo laastiig uu yaalo kaliya harqaanna xataa uma baano dooni cirbaday soo qaadanaysaa way tolaysaa maradaanay samaynaysaa dhag markii la tuso waa si fudud oo maaragtay lagu samayn karo waxa kale noqon kartaa shaqo abuur ay noqon kartaa hadday gabdhuhu soo saaraan in la iibsado hadda waad aragtay $1 saddexda xalbo $1 iyo $1 bar ayaa meelaha qaar laga siinaya waxaan hubaa marka aniga aragtidayda inaan barnaamijkan uu noqdo barnaamij miro dhal anigoo ku hadlayo codka haweenka gobolka Banaadir inaan soo dhaweyno qof walba oo door ka qaadan kara inaan dhahno soo dhawaada inaan u baahanahay habeen iyo maalin gabdho shaqaynayo inaan u baahanahay kuwa u taagan dadkooda waxa la galayaa xilligii Ramadaanka waxa la galayaa waqtigii adkaa ee xanuunada dilaacayeen cudurrada dabaysha oo dilaaga jadeecada xiiqdheerta daacunka shoonka shumbiyoodku ilmaha uu leenahay waxaan looga baahan yahay dhan walba gabdhaha Soomaaliyeed inaan u diyaar garowno bishii barakaysnayd ee qayrka badnayd ayadana inaan u diyaar garowno sidee ayay kula tahay gudoomiye Jawaahir in lagu horumarin karo fikradan in haweenku ay u istaagaan soo saarista face mask ama wajixirkan si looga hortago halista COVID-19 oo mushkilad dunida oo idil gilgishay markaan aragnay adduunka dhibaatada ka dhacday markaan aragnay dad badan oo qiimo badan aan weynay markii aan aragnay waajibaadka annaga in saarno hooyadu waligeedba waa mid dhinsoolka iyo daabaca iyo gogasha iyo rarada iyo ama falkada ama dhiilahaba ayadaa tolaysiyo babisidaan aad arkaysaan haweenkaa soo saara waxay la tahay raggu ma sameeyo fikradan lagu sameeyay inaan mukayfka uga kaaftoono oo annagu aan isku babino gabdhuhu waa aalad u baahan in laga faa'iideysto oo gabdhuhu ma daalaan hooyada Soomaaliyeed waa wadani marka waxay ila tahay aniga wadaniyada ayaa wax walba ina baraysa midda labaad hooyadu waa macallin ayada macallina hooyadu waa abaabiye hooyadu mar ayada intelligence oo security oo amniga ka qayb qaadanaysa hooyadu ayada mar walba wax dareemaysa kan baahan kan buka kan maqan kan jooga isku si midba nooc u feel garaynaysa marka hooyo waa hooyo hooyanimada faraysa marka fikirkan markaan isu nimid aniga gabdhaha oo u mahad celinay ogaazada Izaare Calsow waxaan soo saarnay ra'yi maxaan qaban karnaa ayaguna soo sameeyay anaguna aan soo sameynaa isku nimid anagu waliba gloves oo waxaan soo sameynaa baalka bacahan keenay haddana waxaan ku fikirnay inaan u baahanahay qalabkii in la tababaro dadka degmooyinka in maaragtay la soo saaro dad aqoon leh dhalinyaro lagu wacyigeliyo bulshada wacyigeliso waad aragtay gobolka Banaadir waxay bilaabeen laamiyada in la hadda la buufiyo waxa la bilaabay in maaragtay la tirakoobo hatta qabuurihii in dad ay tagaan la soo ogaado dadka dhimanayo form in la buuxiyo
in ma aragtay maxaan ku dhahaa wacyigelin baabuuro sameecada lagu xiro la yiraahdo qofka gurigaaga joog in wasaaradda awqaafta arrimaha diinta iyadana ay doorkeeda ay qaadato iyo maamulka gobolka banaadir in la tababaro qofka meydka duugaya iyo habka loo dhaqaayo iyo sida shuruucda loo maraayo in qalabka qofka xataa asaga laftirkiisa uu isku badbaadin lahaa inuu maaragtay bacdan dheer ee hadda aan soo bandhigayn inaan u xirno in haddana waxaan ku fikirnay qofka inuu biyihii iyo faniinka intay gaar lahayn